عذبان كوباناي عذاينا لجوانتاي كنتي ونبسون غاي عذبان كوباناي عذاينا لجوانتاي كنتي ونبسون غاي waxaan muuqaalkan kaleedii kugu soo gudbinaynaa qisadii qaybteedii labaad wiilkii dhalinyarada ay joogay dalka Tansaaniya haddana gabadhii ayaa soo hadashay talow maxay inoo wadaa ayashada daawaday intayna faahfaahinta gelin muuqaalka leeg iyo share iyo community-ga hoos aad noogu qoraysid intaa fadlan ku samee sidoo kale gabadhii wayna soo wacday waxayna nala waagtay barbarkeeda waxyaabaha ay dareemayso ama haysta waxay tiri wiilkan aad iyo aad ayaan isku jeclaynay ha yeeshee jacaylkanagi waxaa nusqaan ku noqday aana ka noolaan waayay xagga faamilkanaga haddeeroo la joogana aad iyo aad ayaan u ila darnaa waxaana saacadan hadda la joogo laygu xanaananayaa isbitaal ka mid ah isbitaalada waaweyn ee dalkaas Tansaaniya ha yeeshee daawada aragtidaada ka dhiibo yaa dhibaatada halka gaartay yaa iskale toosoo community-ga noogu qor waa su'aasha koobaad annagu aan ku weydiinayno gabadhaasoo sheekadeeda sii wadata ayaa waxay tiri ma soo koobi karo waxyaabaha laygu sameeyay waxaana ciladaas iyo dhibaatadaas iyo xaaladayda halka gaarsiiyay waa faamilkanaga gabadhaan oo sheekadeeda sii wadata waxay tiri intii aan jirin oo jiradaydu iyo xanuunkaygu uusan fogaan isbitaal iyo heerku hadda joogana aana gaarin ayaan waxaana dalka Tansaaniya dal darisla ah meeshii reerkanagu deganaa iyo magaaladan joogay iyo aagii wiilkan baanu isku qabnay anoo ka dheeranaya ugana dheeranaya in macnaha wiilkan aan ka kaxeeyo meel kale oo wadamada kale ahna aan jacaylkanaga kula wadaago maadaama wixii jacaylkanaga aan ka wadaagi weynay ay ahaayeen faamilkanaga iyo reerkanaga